الصلاة وحسنتان وديارة عطوبية كترسان عيدا كاسلوبتا كسودة وطلسك قودة عيدا كاسلوبتا مدن مدحوينه waxa sharaf noo ah inaan kugu soo dhaweyno taliska guud ee ciidanka asluubta taliska guud ee ciidanka asluubta waxa hadda ku hor fadhiya hogaamadii iyo ku-xigeenadoodii si ay u dhageystaan maadaama howlku inagu yaryahay kuwa kalena ay u gudbiyaan iyagu iyadoo aynu hadda maqal iyo muuqaalba lagu daawan doono mudane madaxweyne waxaanu diyaar u nahay haddaanu ciidanka asluubta nahay inaan gudanno waajibaadka qaranku noo igmaday oo ah ilaalinta maxaabiista waxbaridooda iyo dhaqan celintooda aan u soo dhaqan celinayno si aana bulshada wax u yeelin mudane madaxweyne waxaan ballan qaadaynaa in adiga iyo kii kaa dambeeyaba aan muddaxilaadka somalilan intay jirto inta aan loonahay aan waajibka aan leenahay gudanno cid walbana ay waajib ku tahay inuu sidaa yeelo waa maalin kale aan la qaadanayo ciidanka asluubta qaranka si aan xogagaal u wareysto una dhegeysto taladooda iyo soo jeedimahooda ciidamada asluubtu waa hay-ad muhiimad gaara u leh ilaalinta badqabka iyo amniga dadweynaha xilgudashadiina ayaa udub dhexaad u ah adkeynta sharciga kala dambeynta waan idinku bogaadinayaa inaad waajibkaas ka soo baxdeen shaqadiina iyo waajibka aad qaranka u haysaan way ka ballaadhan yihiin haynta maxbuuska oo keliya waxau dastuurku idin xil saaray toosinta akhlaaqda iyo dhaqan celinta maxbuuska si ay hawshaasi inoogu suurto gasho waxaanu idiin dhisi doonaa aqoonta waayo aragnimada iyo qalabka ciidanka asluubta sidoo kale waxaad ciidamada kale ee dalka kala mid noqon doontaan mushahar kordhinta iyo daryeelka caafimaadka iyo waxbarashada dhinaca kalena waxaanu xoojin doonaa waxbarashada ay maxaabiistu ku helaan xabsiyada dhexdooda iyadoo ay dhowaan la bilaabi doono dejinta manhajka u gaara waxbarashada maxaabiista waa hindise aynu doonayno inaynu ku wanaajinno mustaqbalka maxbuuska si aanu caqabad ugala kulmin dib ula qabsiga nolosha tusaale ahaan in maxbuusku uu xukunkiisa soo dhammaysto isagoo ah aqoon-yahan farsamo yaqaan ama xirfad leh si uu noloshiisa u sii wadan karo haweenka iyo caruurta ayaa ka mid ah dadka ku dhibaataysan xabsiyadeenna xukuumaddani waxay ka howlgeli doontaa dhismaha xabsiyo u gaara haweenka iyo caruurta ka yar 18 jir waxaasoo dhan waxaa ka sii muhiimsan inaynu ka hortagno dembiyada iyo sababaha keeni kara dembiga si aynu u yarayno tirada dembiyada dhaca ee xabsiga sababa ama maxaabiista kordhiya qorshayaasha xukuumad ahaan hirgelintooda aanu wadno waxaa ka mid ah wacyiga bulshada oo la dhiso inaynu abuurno nidaam dhaqameed qaadaya in muwaadin kasta uu helo xuquuqdiisa siyaasiga ah iyo xorriyadda hadalka waxay himiladaydu tahay in somalilan ay tusaale u noqoto dimuqraadiyadda iyo xasiloonida geeska africa iyo inay sumcad wanaagsan iyo magac ku yeelato fagaarayaasha caalamka si ay tallaabooyinkaasi inoogu hirgalaan waxaanu wax ka bedel iyo kaabis ku samayn doonaa xeerarka jira ee ka hadla xuquuqda muwaadiniinta waxaa kaloo ka mid ah xeerka ilaalinta xuquuqda caruurta walaalayaal waajibaadkan saaran ciidamada asluubta waxay u dhexeeyaan ilaalinta maxbuuska iyo dhowrista ilaalinta xuquuqda waxaan idinkula dardaarmayaa inaad sii kordhisaan dadaalka aada u adeegeysaan qarankiina si cadaaladdu u hirgasho idinkoo ilaalinaya anshaxa aan iska kaashanno si aynu u abuurno somalilan xuquuqda iyo sharafta muwaadinka la tixgeliyo marka uu xor yahay iyo marka uu xabsiga ku jiraba aan idinla kaftamo wasiirka cadaaladda yunis
raggii siyaasadda dhowr goor loo xidhay buu ahaa had iyo goor ciidanka asluubta waxa lagu ammaani jiray oo dadka xabsiga taga ku ammaani jireen ula dhaqanka sida wanaagsan ay ula dhaqmaan maxaabiista tiina halkii ka sii wada baan idin faraya haddii la yidhaahdo wasiirkuna wuu soo maray ragga ha ka warhayo marka la xidho waxaad ku mahadsantihiin shaqada qaran aad habeen iyo maalinba aada u taagan tihiin allaha idin barakeeyo dhammaan ciidamada asluubta iyo qoysaskoodaba guud ahaan somaliland ha guulaysato